أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وعشر كيني شنطة دقيقة وأنا فدقيني سيديدات كساب سنة كيف نخشع في الصلاة صلاة أنه إلهي أتكنينه سيديبه إنه قلبي إنه أقدق كرنا قلبي إلهي تبارك وتعالى خصوصا دقيقتها إنه ربي لهض لينه وإنه إلهي تبارك وتعالى لفقينه قلبي جينا سيديبه إنه ربي كلي أقصو جيدي كرنا وفدقيني سيديدات كساب سنة موضوع عاص شلو حينو ودن بيي رسول كينيس وبنا عليه الصلاة والسلام يخشوع ديسي وعيابها ولا ليال كيني كرا ما انت أفر قضب كريا أينو كدر سينا وحا كيني كرا إنو غفك قلبي جيسا سوجيليو وحاكم إذا أفرتاس التجاوب مع الآيات والتأمين بعد الفاتحة وفيه أجر عظيم إنو غفك آمينت إمامك إنو وافجي آمينتيسا oo qofku aamintiisa iyo aaminta malaa'igta uu isla eegto oo uu isku dayo isaga iyo imaamku inay mar aamin wada yiraahdaan waana meesha kaliya salaada la faray in imaamka iyo ma'muumku ay isku mar ku dhawaaqaan nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam idaa amana al-imaamu fa amminu hadduu imaamku aamin yiraahdo aamin dhaha فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي آمنتي سي آمنت أي ملائكة أي إسوافقان وهل مرة إسوافقان آمنت إمامك إية ملائكة إية أذيك آمنت هذو هذا يصدق لاسي أذو قلبك وسوجيدو أي إسوافقان بل فضل النبي وشيخ عليه الصلاة والسلام إلى دقيسو وحين وحا قفك الله ضافيا وحلا لوحي هريو دنبغيسا ودنبيدي سير يراويان تاني marka walaalayaal in aynu aad ugu fakaro alaaba waxaad arkaysaa imaamka markuu aamin yiraahdo ka bacdi baa dadkii maqasayay aamin leh waxa la rabaa muwaafaqa in la waafaqo ta'miinta imaamka markuu wala daalliin yiraahdo آمينتا إمامك يا مأمومينتا يا ملائكة صدق صدق إسقبتان قفك قلبك يسون حاضر يهي وحوكه ليا إن دنبقاقي هوري إلهي كودا فتبارك وتعالى سو فرصة غالية معها قفك أنو مركا مسكحة كوها يا أوي هذا ولا الضالين باسو سعتي آمينتا كلا أيانسو انت بدنا آمينتا معناه دورته وحي اللهم أجبوي laakiin sida loogu dhawaaqo dad badan way ka khaldan tahay dadka qaar waxay sameeyaan inay yiraahdaan aamin qofkii sida yiri muu ducaysan ujeedadii ducada ahayd oo ahayd ilaahay oo inaga ajiib qofkaasi mu waafaqin aamin haduu yiraahdo oo macna kelmadda aamin macnaheedu waxa weeye allahumma ajib way لكن هذين نقطة آمين بمد الألف مع تشديد الميم ألف كواد شدو يميم كواد شدو معنوه يسبب القصد آدي تانيو وحادو قصد ديب النقانية سيدا إلهي سورة المائدة آمين البيت الحرام تاسوا خاطتك قارئ يكون عن وإن يقول وغان آمين صح ما وركاس
waxaa kaloo markaa aan iyadoo markaa waxa weeyaan aan sax ahayn inuu qofku laba hamse oo ka dhigo hamsatul istifhaam uu geliyo xagga hore qatci uu ka dhigo oo yiraahdo aamiin aamiin hadduu yiraahdana su'aal bay soo galaysaa oo ma aamiin baabay noqonaysaa wixiiba waxay noqonaysaa inaad su'aal ka dhigto tiraahdo oo ma aamiin ba ma ilaa ajiib ba arintu macnaha isma ogid saasaadna la ilaahay bad la murmaysaa haddaad tiraahdo aamiin oo qad hamsatul qatc oo istifhaam haddaad xagga hore ka geliso way ka khaldamaysaa erga sida loogu dhawaaqayaa waa aamiin madku waa madu dabiici miimkaasina mushaddad maaha waa aamiin saasaad ugu dhawaaqaysaa qodobka labaad walaalayaal waxa weeyaan meelaha khushuucda sida gaarka ugu baahan waxaa ka mid a iyadoo salaadoonaad qalbiga soo jeedinayso marka imaamku yiraahdo samica allahu liman xamida jaanis qiimo badan baa ugu jira qofka doonaya ilaahay dembigiisa inuu dhaafo samica allahu liman xamida ilaahay waa ajiibay oo waa maqlay qofkii mahadiyo weeye macnaheedu qofkii maamuumku marka maxuu oranayaa rabbanaa walaka alxamd ilaahayow adiga ayaa mahad iskale waxaa qofku markaa uu ziyaadin karaa inuu qofku yiraahdo xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiih markaa samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd aw rabbanaa walaka alxamd ama allaahuma rabbanaa laka alxamd saddexdaaba waa loo oran karaa say ahaataba inaad ku darto xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiihi dadka walaalaha qaar waxay yidhaahdaan rabbanaa walaka alxamdu walaka ashukru walaka shukru meelay kaga soo arortay ma jirto waa jeebkaaga adaa la yimi adaa ku darsaday kumay soo aroorin booskaas ilaahay shukri waa leeyahay laakiin maqaamkan samica allahu liman xamida waxa ka dambeeya waa rabbanaa laka alxamdu xamdan kaiiran laakiin rabbanaa laka alxamdu laka shukrudaas halkaa kuma jirto qofkii markaa intaa ku dara xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiih ajarkiisa ila dhegayso walaalkayga muslimka ahu nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada tujinaya xadiidka uu tilmaamaya imaam albukhaari ayaa waxaa nin saxaabiya ayaa nebiga wuxuu ka daba akhriyey rabbanaa laka alxamdu xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiih nebigu markuu salaadii ka baxay baa wuxuu yidhi man ilmutakalimu war markii dhawood qofka hadlayey kumuu ahaa saxaabigu wuxuu yidhi markii hore waan yar cabsaday waxaan isbatalo amaad bad gashay markii dambe waxaan rasuulka loo anaa hadlay rabbanaa laka alxamdu xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiih baan idhi markaasaa wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay slam laqad ra'aytu waxaan arkay dhowr iyo soddon bidcatun wa halaaثuuna malakan dhowr iyo soddon malag baan arkay oo waxa weeye yabtadiruuna u kala dheeraynaya ayuhum arfacuhaa kii macnaa waxa weeyaan qaadi lahaa oo rafcin lahaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa weeyaan ama ayuhum yaktubuhaa awal soddon iyo dhowr malag yaa waxay u kala dheereeyeen qofkii ajarkaa hor qori lahaa rabbanaa laka alxamdu aw walaka alxamdu xamdan kaiiran طayiban mubaarakan waka fiihi qodobka markaa waxa weeye saddexaad labaan sheegaye ka saddexaad waxa weeye qofku suu u khushuuco waa an yaqطaca alqiraa'ata aayatan aaya inuu qur-aankiisa aanu durrucin dabadana isugu qaban aayad u kala istaago aayad walba madaxeeda ku hakado tusaale ahaan umu salama radi allahu tacaala canha markay warinaysa nebigu suu qur-aanka u akhri jiray salaada waxay tiri nebigu wuxuu odhan jiray bismi illaahi الraxmaani الraxiim uma yaqif waa istaagi jiray alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma yaqif haddana waa istaagi jiray الraxmaani الraxiim maaliki ywmi اddiin إiyaaka nacbudu وإiyaaka nastaciin saasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ahayd qiraa'adiisu waxaad ka helaysaa macaansi iyo khushuuc iyo faham waxaan aad ka warramayso ugu dambayn
khushuucda salaada waxa keenaya waxa kamida tartiilu alqiraa'ati wa tahsiinu as-sawti biha inuu qofku quraanka kala dhigdhigo oo quraanka cod wanaagsan ku akhriyo qofku cod wanaagsan inuu ku akhriyo inuu kala dhigdhigo aayad quraan ku soo aroortay alla wuxuu warattilil qur'aana tartiilan quraanka kala dhigdhigid iyo wanaajin oo marka waxa loo jeedaa yani iqra'ul qur'aana qiraa'atan mufassaratan harfan qiraa'o kala baxsan oo waxa weeye xuruufteedii aayadeedu ay kala cad yihiin haddaad bowsatay alxamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim maliki yawmiddin oo aad iimaamkaba isagoo aan alxamduba gaani aad ka soo jeesato dad badan baa wallahi xaqiiqatan salaadooda markaad fiiriso aad oranayso ilaahay tabaaraka wa tacaala walaalkeen allah xaq allah tuso sababta waxa weeye salaadani miisaanka iyo qiimaha iyo ilaalinta iyo waxa ay leedahay iyo sida ay agteena ugu sahlan tahay ayaa cajiiba oo waxaanu salaada waxaanu dhahnaa war cishaha inaga rida war salaada inaga riga cisho iyo carmalba waa la bobsiyaa xataa maamahan samaysanay sababta cisho iyo carmal labadaba waa la bobsiyaa gabadha hadii carmal tahay hadii waa ogtahay ku daha male ama wado hore loo maray way iyo cishe salaadii cishe naag carmal xataa la isku midaali yani bobsiinta qofku salaadii wuxuu leeyahay darfata ayn 5 daqiiqo 2 daqiiqo banaankaas uu taagay subhanaka ya azim hada waataynu ilaahay wax kaga doonayno hada waa awwal ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah adoonka waxa ugu horeeya ee rabbi markaad kaliga hor taagan tahay eed qaawan tahay eed qatan tahay eed cagacadahay rabbi kaligii aad hor taagan tahay adiga kaliga waxa ilaahay ku weydiinaya tabaaraka wa tacaala ugu horeyn waa salaadaada haddaad salaadaadu wanaagsanaato aad ku wanaagsanaato ku baasto amalkaaga dambe waxa weeye waa durduro salaada haddaad ku baaso weydaad ku dhaxdana xaj badan baa laha saka badan baa laha masaakiin badan baan wax siiyay sidan aan wax yeelay ka mari mayso salaada ihtimaamkeeda inuu markaa ogaan salaada marka in codka lagu qurxiyo waxa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam oo aan kaga baxaya zayyinul qur'aana bi aswaatikum war qur'aanka codkiina ku macaaneeya oo ku qurxiya fa inna sawta al-hasani yaziidu lil qur'aani husna codka macaan ee wanaagsan macaanidu maaha in qur'aanka adigu sanqada ka keento in qur'aanka adigu saa doonto u lahjadaysato inaad tiraahdo tajwiidka aad u qaadato يعني إن قرآن كسنقذ لقى آخريه ذاتك غير بقرآن كوي غير السنقذ إن لقى آخريه التجويد بنا آخريه قرآن كي بسنقذ بك آخريه وحصح ما سيدا القرآن كوي حويان غناها أي سنك وحا كصوبها حروف الغنة حروف تليرهضو الغنة كليا كصوبها وغنة مخرجها الخيشوم وكيما الجزر أورنجري ها وحويان غناها كليا سنك يعني دغيس خيشومka ka soo baxay sanqaroorka laakiin inta kale waxay leeyihiin 17 guri ee ay xuruuftu ka soo baxaan ay degan yihiin makharij al-huruf 17 على الذي يختاره من اختبر الى اخره oo marka qofku inuu barto 17 makhraj ee quraanku xarfiisu ay ka soo kala baxaan ay ka dhashaan marka nabigu sallallahu alayhi wasallam quraanka ku akhriya cod wanaagsan ahkaamta tajwiidka bartaway oo quraanka ahkaantiisa walaalayaal aruuteena u dirnaa dugsiyada quraanka tajwiidkana aynu u dhignaa laakiin waxa dhici karta aabaha waalidka weyn ee quraanka iyo cibaadadu isaga ay ku waajib ka tahay inuu quraanka wax tajwiida ku akhriyeen quraankuna marka in lagu akhriya waa shay waajib weey wal akhdhu bit tajwid hatm lazim man lam yujawid al qur'ana athim li'annahu bihi al ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala marka insha Allah ta'ala khushuucda waxa nooleynaya waa inaad quraanka aynu ku akhrino tajwiidka quraanka cod wanaagsan oo wanaagsan aynu ku akhrino intaas ayaynu maanta ku joojinaynaa 10keeni 5 daqiiqo ee aynu ugu magac darnay kayfa nakhshu fi salat wa fadhigeeni sideedaad insha Allah ta'ala maanta iyo maalinka bari insha Allah ta'ala aynu jalsadeena noo sii socota wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad